badan oo waxaa soo baxay wiilkan Janice ku gaadaya anuu dadku waxaad ogaanaysaa inay ku jecel yihiin inay ku neceb yihiin markay dhibaatada ku qaso markay dadka follow kala laabteen dad badan YouTuber la arkay oo soo baxay oo ku farxay wala ana waa taageersanaa Asad Xaajiyo waxaan taageersanaa shakhsi ahaantiisa oo taageersanaa ma sha Allah wiil aad u fiican waaye fiicnaan maadaama maaragtay Soomaalidan maaragtay qabiilada isku sii aqoonsadaan hadii qaab aqoonsi aad rabtid inaad ii bartaan aniga dadka aan ahay ama maaragtay qabiilka u dhashay aad rabtid inaad ogaatid of course alxamdulillah anigu waxaan ahay nin ujeedin cism duluud ah had kor waligeyga ma sheegin qabiilkeyga hadan waxaan rajaynaa insha Allah inaad dadka iga dhaxbarteen maadaama maaragtay qabiilku uu yahay wax la isku aqoonsado arinkan qabiilkan inaa ka hadlay waxaan yaani waxa sababtay maadaama maaragtay juqeemo iyo galgalis badan ay imaaday oo maaragtay buuq badan ay dhalisay dadka iga dhaxbartaan dadka waa inay hal noqdaan waa in la jeclaada waa in la taageera waa in shakhsi ahaanteed ana taageerta qabiil ahaan inay ku taageerto ma waxa qofka waxa adiga oo jecesha hadaba sameeyay macnaheed ma inuu xun yahay hadaba qofku taageeraysa marka oo adiga shakhsi يعني شخص أهانتي سكش هادو ما أنت قلت سماية أديس قلتك يعني وحن كلابنا يا فلو كلابنا لو هذا عنتظر بحلة كور هدي أديك نفتان بحلة كور واحد شلهت تهبم وحستك سمينا صومال مركنا قبيل أهان هذا الشيء كذا اسكوب الشيء ما أنت هاي محل رهيفة هبل الآن هديتي هلو سوعلي فلو ويلكس هلو سوعلي الكور محقو نقصتين الكور فلو محاو سيسي عيب هذا قف باهي جون قبل إنا هذا أديك أبود شيء معها كي نينكي دلي يا أديك واحد مسدهنتينا ويلك قفك ما أنت فلو كلابتي وبريها براه بالشدة سوقري والشمس هالوقع هذا أسد حاجيو ده والله إنك دلي واحد مسدامة ده ساملتين والله نحن واحد مسدامة ما أنت ده نقولك أركلد ودلها ساملتين أنا وحني ديلا مالها هديتهين مسكح ياشتا ماي ملدي مسكحين أبروا والله بلا قف كان عينه لكن ساسي تويل كان مسكينك يعني هذيك وحرب ذكرت يدو سميه ومعناها ما إنا أولك قاعدين والشمس كلها والشمس يقولوا قاد بعد آية القرآن كم حقوق بين شيء آية القرآن يا ده قف إن لدول مواي آية محق والشمس قاعدين كلها بعدين ما بيجي آخرنا هذا دردد وين والشمس وضحاها ويتتابنا يا الله يا عزيز كل ديني وبناتها قفك ولال كان إن محل ده شيء يعني إن هدير بوعبكرة هدير معنا وفي عندها جينتين المسلم كوحشة قفك ولال كنا على صو على عابي جينتين المسلم قفك ولال كوحنوس إن يعني لا حنوص قفك تعسيق قوت إن لا حنوص قفك يعني وحياة بدن ما فهمتي لكن ساسي تدين تنقسم مكدين قفك يربط isbashar walaalkay asad dad badan oo lahaa arkay wiilkan jiiska wiilka awriyaanka yani waxyaalo xamal ma qurux badna qofka wuxuu u yahayna yani ilaaha ka dhigay soo asad maanta waa qof wiilshar ku socdo maadaama maaragtay adiga aad tahay qof laxaadkiisa leh caafimaadkiisa u dhameystiran yahay